6 maalmood dabadeed ciise wuxuu waday butros iyo yacquub iyo walaalkiis yooxana oo wuxuu keligood geeyey buur dheer. hortoodana ayuu ku beddelmay, wejigiisuna sida qorraxda oo kale ayuu u dhalaalay, dharkiisuna sida nuurka oo kale ayuu u caddaaday. oo bal eeg, waxaa iyaga u muuqday muuse iyo eliyaas oo la hadlaya isaga. markaasaa butros u jawaabay oo wuxuu ciise ku yidhi, sayidow, waxaa inoo wanaagsan inaynu halkan joogno. haddaad doonayso 3 waab ayaan halkan ka dhisayaa, mid abaan kuu dhisayaa, midna muuse, midna eliyaas. intuu weli hadlayey, daruur dhalaalaysaa ayaa hadhaysay, oo cod baa daruurtii ka soo baxay oo yidhi, kani waa wiilkayga aan jeclahay oo aan u faraxsanahay, maqla isaga. xertiina goortay maqleen ayay wejigooda u dhaceen, aad bayna u baqeen. markaasaa ciise u yimid oo taabtay oo ku yidhi, kaca, hana baqina. goortay indhahooda kor u qaadeen, cidna ma ay arkin, ciise keliya maahe. markay buurta ka soo degayeen, ciise ayaa amray oo wuxuu ku yidhi, ninna ha u sheegina waxii aad aragteen intaannu wiilka aadanahu kuwii dhintay ka soo sara kicin. xertiisii waxay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen, haddaba culimmadu maxay u yidhaahdaan eliyas waa inuu horta yimaado? markaasuu u jawaabay oo ku yidhi, waa run, eliyaas waa imanayaa oo wax walba ayuu soo celin doonaa. laakiin waxaan idinku leeyahay, eliyaas horuu u yimid, wayna garan waayeen. laakiin wax kasta oo ay doonayeen ayay ku sameeyeen isaga. sidaas oo kalena wiilka aadanahu xanuun buu ka heli doonaa iyaga. markaasaa xertiisii garatay inuu kala hadlay yooxana baabtiisaha.